waxaa loo baahan yahay indhaha anaga indhaha caadiga inaan ku noolaana ma aha keligood. maalimo badan baan kaa maqlay dood hiisay ciise masiix wuu ka adkaaday dhimashada arrintaas manoo sharax kartaa waxaa laga wada. aad iyo aad baan u jeclahay inaan noo sharaxo. ani waxaa la yidhahaa Rayaaq. kusoo dhawaada barnaamijka la dhaho Adaa Lagugu Talagalay. maanta waxaa ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan Raxmo nolosheeda. kusoo dhawaada Raxmo. waa mahadsantahay Rayaaq. Raxmo waxay sheegaysay saddexda caruur la qaatay da'dooda iyo see ahaayeen. saddexda caruur da'dooda waxay ahayd 10 jir 8 jir 6 jir. marka waxay ahayd saddex aan saaxiib nahay oo sariirta way isku dagaali jirin. anaa kula seexanay anaa kula seexanay anaa kula seexanay anaa waa sheekeysan jirnay way heesi jireen. waxay qabeen ciyaaraha ciyaalaha ku ciyaaraan oo lagu heesa. marka waxay ahayd ilmo aad iyo aad mar kastaba ay ag jooga. teeda kalena waxay ahayd inta ay bixin subaxdii habeenkii waxay fiirsadeen seede oo ah ka sheekeynaya taariikhdii Yuusuf. oo markii Yuusuf walaalihiisii ceelka ku rideen oo kasoo bixiyeen sheekadaas dhan markay fiirsanayeen inaan wiilkeyga yar Yaxya oo fiiriyey aan waxaan dhahay markaasuu hooyo maxaa iga fiirinaysaa Yaxya wuxuu ahaa wiil yar cad oo ilmaha ka yar cad oo intana wuxuu ka lahay calaamad madow. markaasaan dhahay haddii adiga taasaan kugu dhacdo waa inaan si fiican kugu fiiriya oo ku xasuusta calaamadda sada weynaatid iga da aniga saas mihi oo dhahay. markaas ka bacdi waa qosolna waa kaftanay ka bacdi wiilka kale ataa goosa xanuunay subaxdii la wadaayay wuxuu lahay dhakhtarka ilkaha 8 su'aal waxaan hal cunuga dhakhtar halkaas cunuga ku darsanina way ku darsadeen. laakiin sagan habeenkii uu duceystay oo wuxuu yiri hooy ilaga ay xanuunay ii duceeyay waxaan dhahay ciise masiix dhigiisa ku caafimaadaysa ilaahay wuu balan qaaday qof alaala qofkii dhaho magaca ciise waxa waaye asaga dhaawiciisa ku caafimaadaya balan qaadka oo ku yaala kitaabka quduuska wuxuu ku leeyahay asaga dhaawiciisa waan ku caafimaadayna waan ugu duceeyay inuu caafimaado gacantan saaray magaca masiixiga inuu ku caafimaado oo masiixiga dhigiisa inuu ku caafimaado. markaas wuxuu dhahay hooy waa caafimaadeen lugba ay xanuunayso dhahay waa u duceeyay waxaan dhahay magaca masiixiga waa caafimaad qabtaa. hadda maxaa dareentay wuxuu dhahay waa caafimaad qabaa. marka ilmaha wax eed isla hadli jirnay aan wada sheekeysan jirnay oo ilaahay jecel oo ilaahay ku kalsoon. yacni meeshan shaydaan soo dhaxgalay laakiin waxaan ogahay aan aaminsanahay in shaydaan shaqeyneen waqti uu leeyahay waqti oo ilaahay imaanay uu leeyahay waqti stop. shaydaan ma shaqeynayo waxa shaqeynaya kelmadda ilaaha iyo ilaaha xaqa ah oo ilaaha samada cirka abuuray kaas oo qalqiga iska leh kaas oo hadalkiisa lagu soconayo kaas oo cid alaala cidii oo u hagaanta oo hadalka ilaahay qaadata oo masiixiga ah oo ciise masiix ah qaadata oo u tagaya aabbaha samada joogo. yacni ilma cabsi la'aan yacni waxa ka celin kara ma laha rabbiga xaqa ah. marka saas la aligeeda ayaa ilmihiis waxdi ku bixeen ayagoo duceysan. laba wiil iyo hal gabar. gabartee ahayd gabar aad aan saaxiib u nahay waaye Maryama la dhihi jiray. Maryama waa jecel oo Maryama waa gabar fiican. Maryama waxay ahayd saaxiibadeyda waxay ahayd gabadheyda yacni maxaa ku hoosay gabartaan soo xasuusatay. Maryama waxay ahayd gabar aan jeclahay waan ogahay waan ogahay Maryama inay meel fiican marayso yacni mala hadashay Raxmo Maryama markay baxday kadib. Maryama waa ogahay inay meel fiican marayso waa la hadlay lama hadlin 2 sano ciyaalkaas laakiin hadda caloosheeda waxaa ka muuqata farxad badan yacni ilaahay wuxuu leeyahay ha baqid ilaahay wuxuu leeyahay ha baqin waayo shaydaanka awood ma laha cadowgana awood ma laha anaa ka sareeya anaana ah kuu hogaamiya waqtigaa imaan doona cadowgaaga lugaaga hoostooda ay mari doonaan waayo waa qoran tahay cid alaala ciddii rumaysata masiixiga oo qaadada dhiigga masiixiga in ilaah boqorka hortiisa
ay istaagayaan oo ilaahayna yani rabbiga xaqa ah inuu yani siinayo xaqiisa waa ogaha inay maryamo ku jiri doonin gacan cadow ay ku jiri doonin gacan shayddaanna ma xakuma cadowna malaha waxay xaq u tahay ilaahigeeda iyo waalidkeeda qofka si fiican u soo koriyey maryamo waxay ahayd qof caqli badan oo bini aadankana kula dhaqanta hadal wanaagsan qof kasta ay salaanta waxay leedahay hebel waa ku jeclah waxay siinaysaa yani way qabsanaysaa waxay leedahay waan ku jeclahay waayo in badan kuma arkin maxaa dhacay waxaa ahayd qof aad u caqli badan qof wax ka barataan way ahayd way baratay yani kitaabka quduuskan inta yareed waa la beri jiray ciyaalka yani meesha cadowga oo wax weyn ka arkaya markuu arka qofka ilaahay u adeegaya yani cadowga wuxuu kuna yani shayddaanka wuu dhexgalaya qofka bin aadanka wuu iska horkeenaya qof kasta asaga tiisa wax u ah yani xure u ah laakiinse anaga diin ma fiirna diiman badanaa jira laakiin diin kuma dhaqmo dadka diinta haystan shaqo ku mari qof kasta tiisa laakiin aniga waxaan xiriir la leeyahay ilaaha samada fadhiya ilaaha xaqa ah hadalkiisan ugu tagaa hadalka masiixiga dhiigga masiixigan ugu tagaa anoo u maraya yani waa ogahay rabbigeena hogaaminaya caruurteydana kama baqo kama fikiro waayo ballanqaad baan u leeyahay in caruurteeda meesha joogto lagu ilaalinaya cadow kasta daba socdana in waqtigooda dhamaanayo oo yani ay ka hari doonaan laakiinse waxaan aaminsanahay ninka odayga ah oo waxaa sameeyey inuu ogaan doono maalin inuu qalad sameeyey qaladkiisina uu qaadan doono in u soo safro ilmo islaameed isaga waalid u yahay oo ka dheereen ataa caruurtiisa ah inuu dhibaatayaal u horakaco inuu wato oo sida oo dad dagaalamaya kale iyo kooxda dagaalamaysa kale inuu wato oo diyaarad u saarto oo midka u dhalay ataa hadduu fahmayn ataa inuu yani u baahan yahay isaga ataa kiisuba caawin la ayay xagga maskax ahaan hadduu asaga wax bartay asaga hadduu shaqaystay oo haddii ayaga business leeyihiin ataa yani inuu asaga kiisa caawiyo oo weyn inuu caawiyo xagga maskaxda kala dagaalamo yani oo dhaho sida wiilkayga maskaxdiisa aad u naqana inuu waqti siiyo kiisu ahay u caawiyo maaha inuu culays kale inuu usii saaro oo la wato jidka ku dhaco laakiin taasna waxaa qalad kugu dhaca qofka qaladkiisu ogaadaa maalin buu ogaan doonaa qaladkiisa yani maalintaas inuu qalad hadda aan hadlayay waxaa laga yaabaa inuu qaladkiisa ogaaday ilmihii way kala baxeen halkan riyaaq waxay la aadeen boliiskan wacnay boliiska markaan wacay waxay dhaheen baabuurkii ay ku baxeen waxaa laga helay tembara magaalo la dhaho kabacdi waxaa la ogaaday isla minadkii waxaa loo diray Rootsia loo diray Sweden loo diray maxaa la dhahay warqabad boliiska waxay dhan wax yar kabacdi elboorka lagu arkay labada nooc sababta caruurta sawir qaladi ku kaxaystan lama arki karo laakiin caruur saddex cunug way wateen noocaas isku markii wax kama qaban karno diyaaradii 6 minute ka hor ayay duushay caruurta hadda istahleed hadda caruurta hadda way ku daawanayaan maxaa la inta ku dhahday hadda u sheegtay waa dhici kartaa ilaahay wax kuma aha inay daawadaan waan ugu faraxsanahay waa caruurteydii cid iga xigdana ma jirto cid iga qaadi kartana ma laha waan ogyihiin saaxiibtinimada iyo waalidnimada galgacaylka kalsoonida farxadda iyo madax banaanshada ay kusoo koreen nimcada ilaahay sii hooyo wanaagsan way ogyihiin yani maanta ka bilaabataa hadday arkaan yani waxay ogaanayaan yani shayddaanka wuxuu la taliyey inuu qalad sameeyey cadowga la taliyey inuu qalad sameeyey waxayna maskaxdooda iyo qalbigooda ka dagaalamayaan siday igu arki lahaayeen iyo sidii dadkii qaladka gala hata iskaga cafin lahaayeen sababta qofka bini aadamka ilaahay wuxuu leeyahay qof kastoo dembi kaa gala iska cafi waayo annaga haddaan dembi galna ilaah baa cafis warsanayna hadda anaga ilaahay dembigeena cafinayna sidee baan kan walaalkeena u cafi weyne maadaama annaga hadda bini aadan ana markasta mar baan dembi galaynaa dembigeena waa in ilaahay dhana ilaahuna cafi saas sida la eg ayaa annagana qofka dembi naga gala ina cafin aniga ata hadda kula hadlaya dadka waxaa sameeya ata waa cafiye waayo haddaan dhaho ma cafinanin yani ma fiicna waxay ana dhiba ii tahay qofka dhiba u tahay ana xiriirka ilaahaygiga dhibay la tahay sababta aniga ilaahay sida ku cafis ama ilaahay ku caawi waqti dheer bay qaadatay maan jeclan inaan arko qof Soomaali ah in xiriir la yeeshto inaan fiiriyo yani aaminaadna waa qiyaano miiran qadadka soo dhaweysata dadka gurigaaga yani qiyaano miiran bay ahaayeenba hase ahaate jaceylka ilaahay ii qabo dartiis iyo jaceylka ilaahay u qabo iyo baryadeeda say u gaarto rabbiga xaqa ah carshiga fadhiya rabbiga xaqa ah masiixiga sidoo asaga iigu ogolaaday jirkiisa isku talaabta lagu xiray aniga darteeda u yeela
sidaaba ano bin aadan wax dembi yar inaan iska cafiya taas aniga waxaa waaye kitaabka quduuska ii qorayaan ilaahayaa isiiyey raxmadaas marka ani waan cafiyey dadkii ilmahaygana way iska cafin doonaan dadkii waxaas ku sameeyey yacni calooshooda iyo nafsadoodana yacni farxad ay ku noolaan doonaan wax qalad laga dhadhacsiiyey yacni waxayna ku dagaalami doonaan siday u arki lahaayeen hooyadooda walaalahooda jecel ilmo badan baa walaalo la ah nolol fiican ay ku wada nool yihiin laakiin shaydaanka hadduu rabay inuu xarag ku xirto ayaga dartooda ay dhahaan waxaan keena ilmihii sida maxbuus waa ciyaalka la haysto waxaan keen marka adiga lacag soo dirtid ama kan yeel waayo lacag loo diraa waayo ilmahan waxa dee awoodii iyo bidni-aadnimadii aad tiri nin madaxa ahay lacagaan haystaa waayo sababta aniga lacagtaan isii leed ku qarash garay ciyaalka wax siiye sababto mar 2 sano ka hor horta maqlay sheekadooda markii wareysay markii horeysa horta ay bixeen way arkeen yani horta markii aan booliiska tagnay aan ka soo noqday sheekada dib aan soo noqday riyaaqay waxa dhacday markii aan u soo noqday booliiska aan tagay gabadha saaxiibaday timid booliiskii markuu saas sheegay ay bixeen ciyaalkii aniga nafsadayda waxay noqotay maalin cad mugdi ay noqotay waxay ahayd waqti samar ah yani waxaan dhahay nolosha waaba dhamaatay adduunka waaba madoowaaday yani cadowgana waxay u ahayd farxaday u ahaan lahayd laakiin ilaahay ula jeedo kaluu lahay iyo in uu yani sababahii aan ugu soo noqonay finland oo yani ingiriiska ugu soo noqonay inuu dhammaystiro shaqadiisii marka waxaa dhacday ilaahay go-aanadiisii ilaahay waa nimco badan yahay waa naxariis badan yahay marka ani mugdi ila noqotay maskaxda isdhaaftay hadda mar labaad maskaxdeed inay isleeyahay waxbaa gaari rabaa aan dhahay aniga maanta nolol ma ii taala haddii caruurta adduunka ugu jeclaay 6 cunug waxa imaba arkinba haddii la isla wata atamaba arki lena mala 3 inaan ka jeclay oo kale wax iima sabarmay marka aan dhahay waxaa fiican in aan isdila aan dhahay saaxiibadayda aniga jidka weyn hay weygaas isku dilaya baabuurkaas ay jiiraya raali noqo iska bax had laakiin intaan ku joojinaynaa waa maasan tahay adaa mudan hay daawayaal hadda fasaxa galaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamijka la dhaho cadaalku ku tookale waa maasan tihiin marka oo goolkii degday iskool ma bilowday maxaa sameysay u dareemta camal ilaahay sidoo ku caawin jiray camal marka kaliya ee camal ilaahay ka fikir jirta camal maskaxda waxa soo dhacday qofka ilmaha dhalay oo intaas ka maqan oo sanad kasta ka maqan oo iska imaanaya waqti walba baxaya awil iyo hal gabarta ahayd gabar fiican Maryam waxay ahayd saaxiibadayda waxay ahayd gabadhayda yani maxaa ku hoosay gabartaan soo xasuusatay hadda barnaamijka waan ku soo laabanay meeshii joognay ayaan ka wadeynaa kusoo dhawaada raxmo waa maasantahay raxmo adaa inta fasaxda galin waxay sheegtay inta caruurta la qaatay oo markaa la qaatay adi dhan camal waa 3 gashay waxna gashay meesha markii aan ogaanay riyaaqay in ciyaalkii la bixin dadkii Soomaali aadeen aniga yani meeshii booliiska markaa ka soo noqday yani waxaa dhacday maalin caday ahayd maalin fiican bay ahayd qoraxda aad u taala iftiin badan doog badan si kasta yani ilaahay raxmadiisa dhulkii ka muuqata hal mar waxaa dhacday inay mugdi ila noqotay yani nolol baad noolaanaysa isma aan oran ma aan ka fikirin 6 cunug oo guri ii joogto 3 cunug oo yaryar waxaa ii muuqatay 3daas inay ahaayeen 3da noloshayda naftaydaba inay hayeen oo kale marka waxaan dhahay gabadhii waan furay indhihii dhan ay bararay yani taasna waxay ahayd shaydaanka siduu sabarka u arkayay in aniga waashto yani dhulka aan ku dhaco fahmaysaa yani taladii shaydaanka koostay ahayd laakiin ilaahay ulajeedo kale ayuu lahay oo ahay ulajeedadii aan kaga soo noqday wadanka ingiriiska aan kusoo noqday wadankan liigu soo celiyey dhaqsi ma fahamtay dhaqsi ma aan fahmin laakiin ilaahay taas buu lahay aan ka wadaa yani aniga markii aan dhahay waa isdilayaa yani laamigaas isdhigaya yani gaarigu doon hay maro oo aniga dooni maayo inaan noolaado 3da caruur la-aantooda mar haddee baxeenna ataa diyaarad ataa kama qaadin karo waa inaan isdilaaba yani nololba ima bahaba la-aantooda aan indhihii i barareen gabadhii saaxiibadee waa ii duceysay gacanta i saartay maya ilaahay baa ku jecelyahay ilaahay ilmaha wuu ilaalinaya ilaahay iyadoo yaabanba iyadoo markii hore biliif karaysanayn oo yaaban ayaa waxaa dhacday in oo ay si kasta ii tuugdo i jiido maya waa isdilaya ma noolaanaya hataa ma rabo inaan raadiyo suu ku yeeli karaa seesaa ku yeeli waxa bin aadan maaha
wax aqli leh maaha si ciyaal koox ciyaal oo walaala ah isla soo koray u kala qaadi karaan xagga guur dartiisa day yacni qof maskaxdiisa doorinaya ha kula noolaado hadduu qofkaan maskaxdiisa doorinaya hadduu kula nooleen yacni waadina ciyaalkaaga waa kala dhantaala nin weyn oo ra'yi leh ilaahay hadduu sharaf siiyey iyo haddii ilaahay xoolo siiyey ilaahay muxuu yidhi xoolihii aan ku siiyey ku dami cid famil oo familkaaga oo dhiigiis ah mise ilaahay wuxuu yidhi xoolihii ku siiyey adiga ku noolow ubadkaaga ubadkiisna ku caawi marka meesha waxaa ilaahay waan yaabay ninkan weyn wuxuu sameeyey waxay ii taagan tahay in isdilo laakiin ilaahay raali kama naqanin shaydaankana farxad bay u ahaan lehed cadowgana gurbaankay tuman lahayn laakiin awal baa waxaa la yidhi masiixiga 2,000 oo sano ayuu ka raayay shaydaan iyo cadow annagana waxaan nahay kuwa raaca masiixiga oo ciise masiix raaca waxaan nahay kuwii raismadii asaga noo raayay 100 jeer raayaan nahay waayo xoog kumaana helin laakiin hadiyad ahaana ilaahay noo siiyey ilaahay markii maskaxdeedii soo celiyey gaariga iska soo raacay anoo wareersan oo waxba ogeen subaxdii ata 6 cunug ata ayaga isdibaray ani wax uma aan karin guriga imid waa seexan waaye waan fikiray si kasta u fikiray yacni taladii ilaahay goostay ayaa imaan doonto markay saacad ahayd 4 habeenimo ilaa 5 inta u dhaxaysay waan daalisa u ooynayay hurda ila dhacday hurdadii markii ila dhacday aan waxaan sameeyey riyadii aan liigu tusay nin baa idaba socda gadaal riya aragtay markaa riya seexatay arkay haa marka ilaa iyo 5 inta la gaarin 4 barkii ilaa 5 anoo qashinkii magaaladii magaal madaxdii anoo qashinka aruurinaya oo dholashinkii qamrigii oo wixii dadkii aruurinaya oo isla hadlay oo isku buuqi naag waalan ah oo guranaya ilaahay marka saas inuu ii firnina way daba socda anuu ilaalina waxaan sameynayo oo ilaahay malaa'igiisa ilaahay wuxuu ka wada ma ogi wuxuu ilaahay tala gooni leeyahay anaga bini'aad intaas la eegan nahay caqligeenana waa intaas laakiin ilaahay markaas asaga nala socda asaga caqli leh asagana na hogaamiya marka waxaa dhacday inuu ilaahay i tusay raxmo fiiri nolosha ku nooshahay maskaxdaada waa 2 qashinkaa guranaysaa koombaha aruursataa dhalooshinka aruursanaysaa tan way noloshaada warqadahaas joornaaladan meesha ka aruurinaysaa laakiinse 6 cunug ayaa guriga kuu joogo shayddaanka wuu taliyey cadowga wuxuu rabaa inuu yacni markaan dhahay aniga hogaaminay adiga ma ilaah baad raacday mise shaydaan yaa u shaqaynaysaa yacni shayddaanka waxa wuu sameeyey laakiin yaa iskale awoodaya iskale ma ilaahayaa awoodda iskale oo raismada iskale mise shayddaana raynaya ilaah baa raynaya raxmo ma rabtaa caruurtaas inaad korsatid 6 cunug 3 cunugna anigoo ilaahayga xaqa ah oo ilaahayga samada fadhiya ah ilaahay nafta ku siiye ah ilaahay ku umay ah ilaahay hadalkiis kuu soo diray ah ilaahay kiis uu jeclay kuu soo diray ah ilaahay kiis uu doortay ilaahay adduunka intuu jecel yahay kiisuu soo diray wiilkiisa waa hadalkiisa waa ciise masiix waa ilaahay xaq ah kaas ma raacaysaa hadalkayga oo ma qaadaysaa jidka yacni ma dabagelaysaa masiixiga oo muu adeegaysaa oo hadalkayga ma qaadanaysaa oo mii adeegaysaa raxmo taasaa aniga aan kugu keenay meeshan jidka ilaahay ayaa qaadataa ina aniga i raacdid oo masiixiga aa raacdid oo ani ii adeegdid oo ana u adeega ciyaalkaaga 3daas anaa ilaalsanaya anaa iskale cid iga qaadi karta male waqtigii ani aan raali ka noqdo waqtigayga hadduu gaaro oo aniga raali ka noqdona waad arkaysaa sina muu dhibtoonayaan muu gaajoonayaan shaqo kuma laha wax adna 3dan maxalin kartaa oo yacni muu adeegi kartaa ilaahgaaga ama waxaa rabta noloshan inuu shayddaankaa faa'iidaysto cadowgana ku farxan maya ilaah waxaa rabaa inaan ku raaco kuu adeego wax alaala aniga aad taadaan ku imid waddankan ma imaan laheen yacni maantan waa ka fiican tahay ina maanta waddan ay ku dhashteen waddan ay ku koreen waddan laga yaqaano waddan dadka dhan yaqaanaan waddan dad dhan ay qiimo u leeyihiin saaxiibo badan ay leeyihiin eedayaal abtiyaal oo dad oo soomaali ahayn oo ah dad kale oo walaal ah adduunka dadka cadiimada waa la wada dhashtay ilaahay un baana wada uumay yani dad badan ay leeyihiin dadkoodii am arkaya qaladka lagu sameeyey ayagaa u duceynaya ayagaa ilaalsanaya ayagaa hataa u duceynaya ilaahayna u ilaalinaya marka ana 3daas ani igu halay adna 6dan no kori oo yacni ha siinin jid ha siinin cadowgaaga ha أو جلعن ha usjicin waana ha agtaada boos ha u banaynin cadowgaaga iyo shayddaanka
adkayso xariga ilaah hadalka ilaah ina adkaysatid dhiigga masiixiga asaa ku hogaaminayo dhiiggaas ayaa yacni ilaah boqorka ah asaana ilaalsanaya hadalkiisa haddaan ku socono ilaah carshiga fadhiga waana ilaalsanaya oo asagaa markasta ruuxiisana la jiro يعني أنا كو قامنا راع هذا الكيا أوكي لا وهذا قراعية عد كلام الراعي وما صنتاي المية ذا إيه وقانايا إلى وان قف أنت قفينا عن هاي وحنا سمينا إقرار النقو إلى هو تسجل بهاد كذا وحنا إلى رالي النقو محنا فتي ذا شلوا وضع الشيء نكاس قال ذا سميني الماء أبغى دور عن أسجن أنيا هو قامنا أنيا مسكعدي سين كشقينا يسوق وحرور صدق أسجع أتا إلهي وعابنا صبت أسجع أتا إلهي وما دي سوا إلهي كي سوا إلهي أساس كل إلهي أني أسجع وضع سمنا إلهي أسجن أنا فاهم سين هاي عقلي وكحار الميس ku aruursado asli ada kii way wax ma sameyn karo maskaxda dhaawac ku gaarsinay ana bedelay asaga aniga gacantay ku sameeyay bini aadamkan ana awal bani laha aniga hogaaminay asagana si ilmiis u arko anaga ilaasan adig ku aagan ilaaso raac masiixigaaga aniga ku ilaahay kuma celinayo aan tukaday aan yaani duceystay jilbaha dhulka dhigday ilaahay wada ku ilaahay iga cafi intii shalay dambiga galay مسكوشان قال يعني بن آدم أسكدي يعني وإسف فيري مرايد أسكو فيري هذا سوى أكاي أوكي نكاس إلما ودرشان إلهي وقت سوى حريدا سلوى عدي إن نديت كاس كله دعاء وما ذا حطوره إلما إن شاء الله إلهي يسي كوان بوا إلمي إسكو سيا الله دله كوان بديق إلهي يسي وإنت جو باي إن الحنانة يدرك الله دقو عندله مركي لحظة حرتي إلمي يغاشة وقالي قسال درك وجي أنت ذي أوجري مجال ذا إمداد كي أركان أنا يقطر أهو وهب إسك إلهي رحمة ديس إلهي حكمة ديسي هالمرة ma yaabeen markay ku arkeen adoo yaabeen haya Allah raxm saasa kugu dhacday ina waalata umaleynayni waxaas dheen raxmo ilmahaas la kala qaaday maba noolo istaagi ka dhacay waa hal dhana ku fikreenay way waalata imaba waalan waxaan dhahay oo talagashay shaydaanka uu rabay laakiin ilaahay raali kama naqanin hey maskax ma leedina ilmaan aabahan waa wada dhalnay hadduu qaatay dambi si fiican kuma qaadan laakiin sidaas ilaahay ku shaqale ani lix cunuga isuweys ama santa waqti jaanis aan ilaahaygeega يا إتسي كوسمي إلهي كراديو أو إلهي كبر إلهي عن رواينا سيبرتو وقت بدنا هيستا إسكول بان رواينا قالوا حيال بدنا رواينا سمية أنا بس إلهي وبإله اللي وحده هاي محسمينا صراحة مقول وحر رواينا قالوا إسكول بان قالي أو كتابك قدوس كأو كبرتو تاسنو عاب جانس كلام يصب بحي يعني سدحدان وين سدحدان وحق دقسي ما قشي مك عرورته بحين عما عرورته markay maya dhaqsi ma galin waxa ka soo wareegtay 6 bilood oo kala ka soo wareegtay iyo 7 bilood waxay tahay intaasna yani maalin kasta waxaan aaday kaniisada sidii af Soomaaliga lagu yaqaano عرورته weyn say ahaayeen meel haduu sheedaan soo gal sheedaanka inuu wax kasta qasuro ani jaajkayga aaday ilmeyga u duceynay waxaan helay ilaahay wuxuu isii awood kale إلهي وحسي مسكحدي دن وحو كدغي يعني قف عصب او كله يعني ميلا مسكدي شكاس اسكو markii way soo waceen hay raxmo he Allah qaladan sameeyay maqsoonta Allah ma rabin inaan soo wato dada isku diray walaal ma iimaanaysa duway ilmaha ma wadanaysa waxaan dhahay wax soconaya ku hadal wax soconayna waa wada Soomaaliya ma soo wadata ku ahaad waan damii soo fahamtay سأفهمت مركو كدا إماو إنه أنا إسي حدا وربا ما إسي حدا كرا قفينا بان إلهي بلا شقي قف إلهي لا شقي مال حدا كرا إلهي سان ملاقي ساب هجامنا كبعد كاركي يقولها اللي وان قبتي واجبي واتوري صابت مسكح اللي جدا لي مرة إنه ماشان شيطان دجالا ما يواركي أرنتان إلهي قبل قاعد إنه حاليو يعني أنا أسكول جوي ما وقتي يكون يعني وقتي وأنا كل ميا سيدا إلهي أرادين هاي سيدا إلهي أبر الله سيدا إلهي جدول كان عدوان إبلايدا إلهي إن عطور لهاي أو ضبكي وفهمسي لهاي إني قلد لين وخلطكود أفار لو درسن إني قلان إني فمي الأفارات قلان قف كست حق وليه حق وليه حق وليه نولشيسا كبعد أنا جوري عند جناية مركز وابك جوري كلا اللي يسي ماشي ولا شيء دقنيت أكتر لكن يسي شيطان كمهراي أدنى اسكو ده علمي وين إنه خصو شو علمي وين جت كله يستاهل علمي اسكو على أقدر سنة علمي جوركم هينس طبعا علمي وين وأفريق 8 جروة ولا 8 جروة 8 جروة شن 8 سنة 8 سنة 8 سنة كبعد علمي جوركم هينس اسكولي هذا سوقي هذا ها هو يدينا سهوة كان أكون عاد أفار أي لوجن هو يدينا مسيح محي كجعلته أنت ذا ما عنتين كان ما يشين طبعا أنت ذي عناية هاد لكن أنت لك كجوجينينا وما سنتي هذا مثلا ولا ليا هذا قيبتك هاد لين رحمة الله شيء أنت نهاد كجوجينينا لكن وودنا
haddaa rabtiin intaad nala soo xiriirtiin waa kana emailkeena iyo telefoonkeena waa mahadsantihiin